samaynta ahdaaf iyo inaad dejisid qorshayaal sanad walba cusub iyo inaad meel dhexe uga tagtid waxa ay daqdi iyo cadaadis ku abuuri kartaa naftaada marka qofka bini'aadanka waxa looga baahan yahay in uu marka hore isweydiiyo waxyaalaha uu soo xaqiijiyay sanadihii hore si uu u xadido waxa uu sanadkan cusub uu qaban karo asbabaha guusha ee qofka bini'aadanka ah waxa kamid ah in uu qofku yaqaano yoolka uu hiigsanayo ama inay cad yihiin yoolka iyo ahdaafta uu ka leeyahay noloshan uu nool dejinta qorshayaal noo gaar ah waxay naga kaalmeynaysaa in aan kala saarno ama aan isku dheelitirno shaqadeena iyo rabitaankeena shakhsiyadeed dabcan qofka wax macquul ah in uu ka shaqeeyo shaqo uusan ku faraxsaneen ama ay shaqada mushaarkeedu uu yahay mid aad u yar marka qofka ujeedkiisu ma ahan in uu shaqadan uu ka shaqeeyo inta cimrigiisa ka dhiman laakiin uu doonayo in ay mataqaanaa kumeel gaar u noqoto si uu u gaaro hadafkiisa ama yoolkiisa tusaale ahaan kale qofku waxa uu ka shaqeyn karaa shaqo isagoo ay muhiimadiisu ay tahay in uu ka kasbado xirfad ama ay uu doonayo in uu ka qaato mushaar in uu ka kasbado lacagtii uu ku gaari lahaa yoolkiisa marka muhiim ayay noo tahay in aan mataqaanaa ahdaaf iyo qorshayaal dejisano hadafku micnihiisuna waxa weeye in uu qofku mataqaanaa calaamasto yoolka uu doonayo inuu hiigsado si uu uga guul gaaro inta uu nool yahay yoolkaas uu doonayo qofka inuu gaaro ama uu hiigsanayo way ku kala duwanaan karaan xagga rabitaanka macnaha kala doonitaanka tusaalaha oo kale haddii aad doonaysid inaad xirfado noqoto ama inaad doonaysid inaad noqotid qof jaamici ah PhD doctors aad noqotid baad doonaysaa inaad luqado cusub baratid baad doonaysaa in aad taajir iyo mataqaana in heerka dakhligaagu aad sare u qaadid baad doonaysaa marka ahdaaftaas oo dhan way ku kala muhiimsan yihiin marka hore ma inaad luqad cusub aad baratid baa kuu fiican kadibna aad xagga mataqaanaa inaad waxbarashadaada sii horumarisid oo master doctors hadhowna PhD miyaa u baahan tahay mise marka hore waa inaad shaqaysataa oo mataqaan lacag uun kasbataa kadibna aad xaggaaga aqoonta dib sii wadataa marka qorshayaashaas ayaa mataqaanaa sida u kala horumarsan yihiin waa mataqaanaa inaad u kala dejisid aad ba u fiican tahay iyadana markan runtii markii la rabo in qofku uu dejinayo qorshihiisa waxaa muhiim ah in ay tahay maskaxdiisu midda go'aaminaysa sababta ah waxaad rabtid meesha ay ka iimaanayaan waa maskaxdaada lama rabo wax khaarijiga ka iimaanaya tusaale oo kale qofku hadduu aad u jecel yahay inuu waxbarashada guul weyn uu ka gaaro ama heer sare uu ka gaaro xagga familigiisu mataqaanaa saameyn way ku yeelan kartaa tusaale ahaan kale waxaan doonayaa inaan barto kulliyadda engineering oo kale inaan barto familigeyna waxay rabaa inaan kulliyad caafimaad ka barto dabcan maskaxdaydu waxay ii sheegaysaa in aan guul ka gaari karo haddii aan barto kulliyaddaas engineering laakiin familigu marka ay igu cadaadiyaan inaan caafimaad barto caafimaadkii waxay noqon kartaa inaan meel fiican ka gaari waayo lacala haddaan xataa shahaado sare ka qaato in aan aqoontii ay mataqaanaa waxuun iga dhiman yihiin bal arkaa sababta rabitaan ahaan igma imaan ama inaan meel dhexe uga haro ayay keeni kartaa marka muhiimadaadu waxa weye markaa qorshe dejinaysid in ay tahay maskaxdaada midda go'aaminaysa sababta maskaxda marka ay go'aamiso waxay awooddeeda iyo juhdigeeda iyo waqtigeeda ku bixinaysaa in ay yoolka xaqiijiso dabcan qof walba waxaan kula talin lahaa inuu arrintaas uu ku dadaalo in ay maskaxdiisu noqoto midda mataqaanaa go'aaminaysa dabcan saan ogsoonahay noloshu waa safar gaaban sida rasuulku sala allahu alay wasallam uu sheegay maa lii wama lidunya maa ana fi dunya ilaa karaakib istadalla taxta shajarati uma raaxa wa tarakaha marka dabcan qofka waxaa habboon in uu mataqaanaa uu leeyahay hadaf uu leeyahay sidee qofku u noolaan karaa isagoo aan hadaf ka lahayn nolosha marka hadaaftaad aad ka leedahay nolosha adduunyo iyo midda aakhiro labaduba inay ku xadidan yihiin oo aadan keliya awood saarin midda adduunyo taas oo mataqaanaa kuu keeni karta adigoo hadaaftaadii adduunyo daba ordaya in ay mataqaanaa meel dhexe geeridu kaga hortimaado marka muhiim bay kuu tahay inaad qorshayaal yeelatid qorshayaashaasna lama rabo waan qoray oo aan ka haray oo waxaa rabo qorshayaashaada inaad practical u bedeshid oo aad qorshayaashaada aad ka dhigtid wax ficil ahaan la arki karo marka taladaas aad muhiimsan tahay waxaa jira talaabooyin ay muhiimka tahay in uu qofku ka fikiro
kadibna uu qaado marka uu doonayo inuu qorshe dejiyo. Qorshe dejintu waxyaalo badan bay muhiim u tahay in aad mataqaanaa wax ka ogaatid inta aadan dejin qorshahaaga. Kow waxaa ka mid ah inuu qofku marka hore xaqiijiyo waxa uu doonayo. Markuu qofku uu xaqiijiyo waxa uu doonayo, tusaalahan oo kale waxa uu doonaya inuu mataqaanaa heerka noocaas ah inuu gaaro, sidaan hore usoo sheegnay inuu mataqaanaa xirfad inuu barto, luqad inuu barto, inuu mataqaanaa taajir waxaas uu noqdo oo kale. xirfadahaas oo dhan qofku isla markiiba ma xaqiijin karo. Marka laakiin waxaa muhiim ah inuu naftiisa weydiiyo waxa ay dabcan ay doonayso. Dadka inta badan waxyaalaha mataqaanaa ka khaldan waxaa ka mid ah in aysan si dhab ah u caddayn waxa ay naftoodu ay doonayso. Marka waxaa kaaga baahan inaad isweydiisid maxay naftaadu doonaysaa, maxay maskaxdaadu doonaysaa. Marka aad xaqiijisid ama mataqaanaa aad cayintid waxa ay naftaadu doonayso, waxay kaa kaalmayn kartaa inaad heshid kow macluumaadkaad u baahneyd si aad shayga u gaadhid. Sidoo kale inaad mataqaanaa baratid ama aad heshid oo kale xirfadii lagama maarmaanka u ahaa in aad yoolkaa gaadhid oo kale. Farsamooyinkii iyo dariiqooyinka isticmaali lahayd si aad yoolkaa u gaadhid, iyo waqtiga aad ku bixinayso inaad xadidid. waxaasoo dhan muhiimadda waxa kulminaya waxaa weeye inay marka hore ay cad yihiin, qorshahaagu uu cad yahay weeye hadafkaagu. Mid labaad waxaa weeye in aad markaad qorshe dejinaysid aad wax walba ka eegtid dhanka wanaagsan. Dadka inta badan waxyaalo ay ka baqaan baa jira, qorshaha inuu fashilmo oo kale, qorshahan inay xaqiijin waayaan oo kale. Marka hore inuu qorshuhu fashilmo, qofku inuu iska aamino waxyaalaha keenaya waxaa ka mid ah inuu qorshayaal hore ugu soo fashilmo oo kale. Laakiin qofka bini'aadamka naftiisu mar walba heer bay maraysaa, sanad walba san ka dambeeya awood baa u siyaadaysa, aqoon iyo karti baa u siyaadaysa. Marka waxaa fiican inuu markaa ka eego, inuu dhanka wanaagsan ka eego, uu dhaho way mataqaan naftaadu way awoodaa in ay hadafka xaqiijiso. Inaa mataqaan dhahdo tusaale kale maalintii intaasoo waqti ah kuma bixin karo inaan mataqaanaa buugga noocaas akhriyo, inaan mataqaanaa casharka noocaas waxaa ku bixiyo. macnaha saas oo kale inaan mataqaanaa haddaad u baahnayd luqad cusub oo kale inaan luqadda cusub waqtiga aan ku bixiyo. macnaha inaa wixii mataqaanaa dhanka xun ka eegtid baana fiicnaa. Marka waxaa fiican waxyaala adii naftaada dhiirigeli, ha ka sugi in dadka ay ku dhiirigeliyaan. Waxa adii naftaada ka sugta inaad is dhiirigelisid. qofku marka uu leeyahay ahdaaf tiro badan uu doonayo inuu xaqiijiyo, muhiimadooda ma ahan in uu dhammaantood uu wada xaqiijin karo. Marka waxaa muhiim u ah inuu marka hore kala qaybiyo, sidoo kale kala horumariyo sida ay u kala muhiimsan yihiin. yacni qaybinta qorshayaasha iyo kala horumarinta sida ay u kala fudud yihiin ama sida ay kugu kala muhiimsan yihiin ayaa muhiim ah. Marka qorshayaashaada sida u kala muhiimsan yihiin u kala horumari, kuna bilow inta badan kuwaga fudud si ay mataqaan dhiirigelin kugu noqdaan, kuguna riixaan inaad mataqaanaa hore u sii socoto. Naftaadu markasta oo ay xaqiijiso hadaf, waxay helaysaa motivation ku dhiirigelinaya inay hore u socoto, ahdaafteeda kale ay sii gaadho. Marka mar walba horumari, kuna bilow kuwa fudud. Marka uu qofku dejisanayo qorshayaashiisa, waa in uusan fududaysan marnaba awoodda ay naftiisa u leedahay in ay xaqiijiso ahdaaftiisa. Qofku waxa uu yeelan karaa ahdaaf waaweyn iyo kuwo yaryar, labaduba waxay kaaga baahan yihiin inaad waqti u qoondeysid iyo juhdi gaar ah inaad ku bixisid. Marka waa inaadan fududaysan awoodda ay naftaadu leedahay. Dadka intooda badan ayagoo awooddii haya, awooddii leh inay wax ku xaqiijiyaan, haddana kama faa'iidaysan karaan. sidoo kale waxay haystaan imkaaniyaad waxyaalo u suurtagelin kara in ay mataqaanaa xaqiijiyaan bay haystaan. sidaa darteed waa inaysan ka faa'iidaysan ayaa keenaya. arrimaha ku keenaya inay mataqaanaa awooddoodii iyo imkaaniyaadkooda ay ka faa'iidaysan waayeen waxaa ka mid ah in aysan mataqaanaa ay ka baqayaan inay ku fashilmaan oo kale, in ay ka baqayaan mataqaanaa in aysan macnaha aaminsaneenba inay naftooda awooddo inay arrintaas xaqiijiso. marka arrimahaas waa arrimaha la rabo in mataqaanaa aad ka hortagtid.